guud ahaan waxaan ugu tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaskii dadkoodu ku waxyeeloobeen weerarkii argagixiso ee lagu qaaday Hotel Al Hayat. waxaan alle ugu baryaynaa intii dhimatay naxariis iyo janno, inta dhaawac ahna degdeg caafimaad degdeg ah iyo bogsiino soo degdegta ayaan Ilaahay ugu baryaynaa. sida aad la socotaan ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa Hotel Hayat ayna ku shahiideen dad rayid ah, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen. tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. waxaa sidoo kale jiri kara meydad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin isbitaalada. tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah in la geeyo xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. xukuumadda Soomaaliya waxay mas'uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaanna dhaawacyada culus in ay daryeesho ayay mas'uuliyad gaar ah iska saari doontaa. ugu dambeyn waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan bahda caafimaadka oo har iyo habeen u soo jeedeen wax ka qabadka dhibaatadii dhacday, muujiyeyna dareen bini'aadanimo iyo gurmad wadaninimo. waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa ciidamada amniga oo ku howlanaa saacadihii la soo dhaafay in ay soo afjaraan howlgalkii lagu dhibaateeyay dadka shacabka ah, sidoo kalena soo badbaadiyay shacab aad u tiro badan oo ay ku jiraan caruur iyo haween ay ku jiraan. ugu dambeyn xukuumadda sidaan horeba u sheegay waxay mas'uuliyad gaar ah iska saari doontaa daryeelka dadka wax soo gaareen, gaar ahaan dhaawacyada culus. waxaan rajaynaynaa Ilaahay caafimaad degdeg ah inuu noo siiyo, dhibaatada na soo gaartayna eebbe uusan mar labaad nagu soo celinin. rabbi dalkeenna ha barakeeyo, amni iyo ammaanna hana siiyo.